Ibrahim Traore ayaa noqday hogaamiyaha waqti xaadirkan ay reer galbeedku sida weyn u doonayaan in ay khaarijiyaan waxaana uu ka badbaaday in ku dhow 19 oo isku day oo dil ah kuwaas oo isugu jira kuwa ay reer galbeedku soo maleegeen iyo kuwa kale oo ay soo abaabuleen jabhado mucaarad ah oo ka jira wadankiisa kuwaas oo taabacsan hogaamiyihii hore ee xukunka sida afgembiga ah looga tuuray ninkan oo aad wada garanaysaan waa madaxweynaha Burkina Faso waa madaxweynaha daqiiqad kasta saacad kasta iyo waliba ilbirigsi kasta aad looga hadalayo warbaahinta adduunka muuqaalkan kuma saabsana in aan ku qeexo shakhsiga uu yahay Ibrahim Traore iyo waliba waxyaabihii uu wadankiisa u qabtay labadii sano ee uu xukunka dalka haystay balse waxaan rabaa inaan idinku la wadaago sababta uu ninkaasi u noqday bartilmaameedka koowaad ee madaxda Afrika kaas oo ay reer galbeedku si weyn u doonayaan in ay khaarijiyaan balse inta aan gudagalin muuqaalkan ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto asxaabtada kale ee Facebook-gana aad u share garayso aad baad u mahadsantahay Ibrahim Traore markii uu xukunka dalka la wareegay waxa uu la yimid isbedelo waaweyn iyo qorshayaal cad oo uu ku maamulayo wadankiisa sidoo kale waxa uu la yimid siyaasado cusub oo uu kula dagaalamayo wadamada shisheeye kuwaas oo ka soo horjeeda xukuumaddiisa waxaana wadamadaasi kamid ah Faransiiska oo ah wadan aan la gambanaynin fargelintiisa sababta uu u noqday Faransiiska cadowga koowaad ee Burkina Faso ayaa waxa ay tahay Faransiisku waxa uu joogi jiray oo uu saldhigyo military ku lahaa gudaha wadanka Burkina Faso ka hor inta aanu talada dalka la wareegin Ibrahim Traore waxa uu si waali ah u aruursan jiray dahabka iyo macdanta laga soo saaro wadankaasi siyaasad ahaanna Faransiisku waxa uu ahaa mid gacan weyn ku leh jaangoynta siyaasadda Burkina Faso Ibrahim Traore markii uu talada dalka la wareegay waxa uu gebi ahaanba wadanka ka saaray oo uu ka eriyay Faransiiska kaas oo si bilaash ah u aruursan jiray kheyraadka wadankiisa waxaana tallaabadaasi abuurtay in Faransiisku uu noqdo cadowga koowaad ee uu leeyahay Ibrahim Traore waxa la fashiliyay dhowr isku day oo dil ah kuwaas oo uu soo maleegay wadanka Faransiiska waxaana qorshayaashaasi laga lahaa in lagu khaarijiyo Ibrahim Traore sidoo kale waxa jira wadamo kale oo iyaguna soo abaabulay qorshayaal dil ah kuwaas oo la damacsanaa Ibrahim Traore balse waxa isweydiin mudan Faransiisku waxa uu cadaawad weyn kala dhaxeeya Ibrahim Traore oo ah shakhsiga wadanka Burkina Faso ka soo eriyay laakiin wadamada kale ee reer galbeedka ah ee doonaya in ay khaarijiyaan Ibrahim Traore maxay ka rabaan reer galbeedku ma doonayaan in ay arkaan wadan Afrikaan ah oo sidooda oo kale u horumarsan mana jecla in ay arkaan wadan Afrikaan ah oo ka maarmay kaalmadooda sidoo kalena iska jaray xiriirkooda siyaasadeed iyo mid dhaqaale labadaba ninkanna waxa uu muujiyay in uu gebi ahaanba ka maarmay kaalmadaha shisheeye sidoo kalena wadankiisa aan soo degi karin reer galbeed iyo wax la mid ah taa bedelkeeda waxa uu adduunka tusay Ibrahim Traore inuu wadankiisu uu yahay wadan isku filan oo aan cidna wax uga baahnayn waana ay muuqataa midaas wadanka kaliya ee siyaasad ahaan ay saaxiibo dhow ay yihiin Ibrahim Traore waa wadanka Russia waa wadanka kaliya ee sida weyn uga soo horjeeda siyaasadaha guracan ee reer galbeedka sababta ugu weyn ee ninkan ee reer galbeedku u daba taagan yihiin ayaa waxa ay tahay in uu ku fikiray mideynta qaaradda Afrika isla markaana qaaradda laga nadiifiyo saameynta ay ku leeyihiin sida wadankiisa uga nadiifiyay oo kale waxaana ay u arkaan in ninkani uu halis weyn ku yahay danaha mustaqbalka ee ay reer galbeedku ka leeyihiin qaaradda Afrika